dadka Soomaaliyeed waa dad muslim ah kuna dhaqma diinta Islaamka. Muddooyinkii ugu dambeeyay waxaa magaalada Muqdisho laga taagay taalooyin la sheegay in lagu weyneynayo halgamayaashii soo maray dalkan Soomaaliya, maadaama ummadan Soomaaliyeed ay yihiin ummad muslimiin ah. Haddaba diinta Islaamka maxay ka qabtaa taalooyinkan laga taagay magaalada Muqdisho? waa kan fadiilatu al-sheekh Maxamuud Shibili xafidahullah oo ka hadlaya. si kooban shariicada islaamku taalooyinkan ma banaana in la dhiso, magac kasta ha loo yeelo ama maamuus maqaam ama magac dilkii la doonay ha loo sameeyo. tamaathiishan iyo taalooyinkan waa kuwii asnaamta ahaa ee nabigu kacbada markuu yimid uu burburiyey way. labadaba ama saddexdaba sharcigeennu waa u diiday. taalo la dhisay aadamu waxay ku soo bilaabatay dad fiican oo khayr badnaa oo ha lagu xasuusto ha la xuso laleeyahay. dad baa halgamayna inay isla macnahaas oo kale xambaarsan tahay wax fiican bay sameeyeen ha lagu xasuustaa. markii dambana waa la caabuday, dad fiican bay haayeen. waxaa kaloo la caabuday kuwa taalo loogu sameeyey khaa'imiin dhib badnaa sida sheekada iyo taariikhda lagu kala dhaxlay. kacbada agaheeda waxaa ooli jiro asnaamta waaweyn oo xoolaha carabi ku qasha ka mid ahaa isaaf iyo naa'ila. isaaf waa nin, naa'ilana waa naag. waxay yidhaahdaan waa laba isku dayey inay xumaato iyo zina ku sameeyaan kacbada, kadibna ilaahay qallajiyey oo cadaabay. kadib laba meelood bay kala ooli jireen bay yidhahdaan taariikhda iyo kitaabta qasasku. carab meel bay isugu keento ilaahya la caabudaa laga dhigtay. kuwiiba cadaabka ku dhacay ee kacbada xumaatada ku sameeyey, kacbadiina waa ixtiraamayna, iyagana waa caabuday. caqliga bini aadamkuna waa un caqligii. caalamka asnaamta la caabudana waa un taalooyin ka turjumaya dad la weynaynayo oo la qadarinayo. saas darteed baa sharciga islaamku xaaraantinimeeyey, calina nabigu kula dardaarmay calayhi salaatu wasalaam wax allaale wixii taalle u arka inuu dudumiyo jabiyo. mar haddii sharcigu xaaraantinimeeyey, fasaad iyo fidno badanna ay keenayso oy keentay taariikhdii horena in maal iyo xoolo lagu bixiyo khalad wey. haddaba walaalka muslimka ahow, maadaama diinteenna islaamka meelna aysan kaga oolin taalooyinkan laga taagay magaalada Muqdisho, haddaba maxay tahay qiilka aad u raadinaysid?